Soomaad garan fitina aadan Soomaaliya ka dhicin weligeed wallahi fitu aadan ka dhigin Soomaaliya fitina aadan ka dhigin Puntland kama dhacdaba ma la socotaa daawada dhageystay bishii January February March iyo April afarta bilood oo isku xiga xafiiska madaxweynaha waa dawladda nabad iyo nolol ee farmaajo inaan shaqaalaha wax mushaar la siiyo الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت تاريخه واحد يدل هجنيسا شنتي بشي شون لبكون يستقال يطفن هلك ساعدنا أي حمان تدقتي بالدواء الصبح وأهل فريد باركيدي حقاك بس ماذا واحد يجوا إنجنير لك وينه وكل مشغول صن كام مرة اسمه إدارة وين كحركها حديد عين شركة حنبارة صبح قيبيها بكسيها يبي خاميها isla markaana aad u duraamanaya doolilamood iyo faradaliya soo awaamiir kala duwan iyo kaydiyaha isnuujiyaasha abuuriyaha iyo codnaxyaasha hagaag isku soo wada duubo maalmihii ciidda lagu jiraa wali waxaan doonaynaa halkan hadaan nahay dhaka weyne media inaan ummadda Soomaaliyeed uga soo gudbino barnaamij aan inaba caadi ahayn barnaamijka maxaa la yiraahdaa dan guud iyo dawladnimo hagaag haddaba barnaamijkaas waxaan doonaynaa dhammaantiin inaad dhuuxdaan wax kale oo ujeeddo ah oo laga leeyahay ma jirtee waa dan guud iyo dawladnimo waaye kolkii la dooranayay dawladdan maanta talisa waa dawladda farmaajo markii la dooranayay waxay ahayd 8 bishii Febraayo 2017 bay ahayd madaxweynaha markii la doortayba ballanqaadyadii uu fuliyay ummaddu way xusuusataa maxaa fulay maxaa se fulin wuxuu madaxweynuhu afkiisa inooga sheegay inay tahay dawladdii isla xisaabtanka haddaba haddaan maanta anigu idhaahdo waxaan la xisaabtamayaa dawladda ama wixii xisaaba ee ahnayaan soo dallacaya hadee halaygu qaato ilaa dawladdaaba waxay tahay isla xisaabtankii hagaag waayahay haddaba dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka wada shaqayn waaya waa arrin ka hor imanaysa qodob ku yaala dastuurka loona dul qaadan maayo su'aashu waxay tahay haddaba yaa mas'uulka arrinta mas'uuliyadda waxa qaadanaysa dawladda federaalka hadday wada shaqayn waayaan dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda federaalka maxaa yeelay Soomaalidu waxay ku maamaadaa madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto hagaag haddaba balmaansa ahaan aynu eegno oo maxaynu nidhi hadduu geel sahwiyo surka iyo madaxa hadduu sare u dhigo surunkiya hadduu suryadii ka dido siigiya haddii boodhku sare u kaco sirqad iyo duqda sirbi lala dhacaa sinka riixid iyo sir baa lagu dayaa ha ku daba socdee waa loo sabraa sida iyo darteed mudanaha sare xilku saaranye Soomaaliyeedu dalka samata bixiyo salaanka shaqada ha ka simbirraxoon waayahay alla ilaahay taa inta aan kaga gudbo waayahay daawada dhageyste ma la socotaa inay jiraan warar hoose oo soo taraya wararkaas maxay ku saabsan yihiin khariidadii la sheegay barigii dhaweyd inay Ethiopia kaba tirtirtay Soomaalida khariidada adduunka oo dhanba waayahay haddaba daawadayaal dhageystayaal arrintaas soo taraysa maxay tahay warar baa waxay sheegayaan inay jiraan niman saraakiil ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo ilaa eega la weydiinayo su'aalo ku saabsan khariidadan fashilkii ku dhacay warar badan oo aanu helaynana waxay sheegayaan wali in arrintaas la isku daba taagan yahay haddaba isku soo wada duubo bal hadda eeg haddaynu dib qooraansano waxay ahayd 8 horraanteedii markii Malla Zanaawi uu deganaa hotel Juba ma la socotaa daawada dhageystay Malla Zanaawi inuu af Soomaaliga aad u yaqaanay isla markaana weligii aan la maqal isagoo ku hadlay ma la socotaa inuu ka deganaa hotel Juba Malla Zanaawi qolka 12aad haddaba markii 8 dabayaaqadeedii Mangista Xayla Maryam iyo ay isugu yimaadeen Maxamed Siyaad Barre waddanka Djibouti yaa labadan dal waxay go'aan ku gaadheen midba kale inuu mucaaridkiisa soo saaro kabacdi Malla Zanaawi xamaamtiisa qaatay kabacdi bay qoladii SNM la oranayay ee Ethiopia saldhig u ahaana ay dagaal ku soo qaadeen gobolada waqooyi galbeed
haddaba isku soo wada duubo Malla Zanaawi oo aynu inagu Soomaaliya gacanta ku hayn jirnay hotel Jubbana deganaa qolka 12aad muddo 9 sano ana canshuurta dadkeena laga soo qaaday la siin jiray hadduu khariidadii adduunka inaga tirtiray waxay Soomaalidu ku mahmaadaan bas ninkii beertuu gubaa taana intaan kaga gudbo waayahay daawada dhageysta ma la socotaa inay jiraan warar badan oo isa soo taraya oo ku saabsan bal hadda eeg badda inaga iyo Kenya aynu isku hayno inay Kenya badda qabsato oo ay shidaal ka qodo oo ay nagu qabsato sababta inay iska lahaayeen niman Soomaali ama la socota dalkeenni markuu burburay nin walba oo Soomaali wuxuu yiri xageedu qaraab tagtaa niman haddaba saraakiila oo la yaqaano baleeg hadda dokumentiya waxa jira hadda yaala goortii loo baahdana la soo saari doono baddaana sababteeda waxa iska lahaa niman Soomaali ah oo dib u socda waliba isku soo wada duubo hasha maandeeq dadna waxay doonayaan inay numaalo dadna waxay doonayaan inay qashaan kuwa dib u socodka ayaa mas'uulka ahaa waxana xusuustay mahmaa Soomaaliyeed oo oran jirtay geed baa wuxuu yiri gudunay haddaan barkay kugu jirin imaadan goyseen taana intaan kaga gudbo waaye haddaan sheekadii nabad iyo nolol dib ugu noqdo waxay xusuusay waa nabad iyo nolol baleeg hadda Soomaalidu waxay tiraa gaalka dilgartiisana si nabad iyo nolol dadka maanta anigu dhaliilsan baan ku jiraa hase ahaatee dee xilli baynu dooranay oo waqti bay leeyihiin oo mandate bay leeyihiin bal hadeeg laakiin arrin baan doonayaa inaan qiro weli taariikhda Soomaaliya mayna soo marin xafiis madaxweyne oo 4 bilood lacag laga qaadan ma la socotaa daawada dhageystay bishii January February March iyo April 4 bilood oo isku xiga xafiiska madaxweynaha waa dawladda nabad iyo nolol ee farmaajo inaan shaqaalaha wax mushaar la siiyo intaana lagu jiray kala huf iyo kala haadin xagga musuqmaasuqa iska badaa yeelkadeeda waxaan xusuustay sheekadii cigaal shiidaad ee oran jirtay bal eeg hadda war bal hadeeg cigaal shiidaad baa habeen lugeeyay isagoo socda iyo wuxuu arkay qod ama geed meygaaga oo jaban oo wadada dhex yaala cigaal shiidaad uu fadhiistay habeenkii oo dhan halkii uu iska waardeynayay geedkii meygaaga ahaa iyo cigaal iska waardeynayay sidoo waardeynaya waagi bariyay markuu waagi bariyay ayuu geedkii la hadlay wuxuu geedii ma waxaan ku mooday mise waxaan noqotay mise waxaan loo noqonay geedii waxaan ku mooday bahal laakiin geed baa noqotay waxaan loo noqonay habeen dambe oo nguureeyo alla ilaahay nabad iyo nolol ay markii la idin dooranayay sidii la idin moodayay waa noqon weydeen laakiin 3 su'aalood baa idin hor yaala baleeg hadda idinka waxa tiraahday markaan idin dooranay waa dawladda isla xisaabtanka haddaanu idin la xisaabtanno hamoodina inaanu idin caayayno hamoodina inaanu mucaarad nahay waa la idin la xisaabtamay qalin iyo buug baan wadanaa 3 su'aalood baa idin hor taala nabad iyo nolol 3 ma taqaanaa ka koobaad ku sheega maxaad qabateen maxaa qaldamay maxaa qabya 3 baad nooga jawaabaysaa Soomaalidu waxay moodaan ninka la doortay hadii la xisaabtamo ama su'aal la weydiiyo in meeshii la isku dilayo oo qoriyo war ma jiraan waxaas Soomaaliya hore u dhaqaaqay waa la bislaaday su'aalahaas aad nooga jawaabaysaan waaya taana intaan kaga gudbo alla ilaahay waayahay waxaa jira niman meesha aan dib u socodka soo sheegnay niman wadaniyiin oo Soomaali ah baa jira hamoodin inuu wadaniga dhamaaday wadani baa jira wadanigaasi dhib badan buu qabaa waa la caayayaa waa la dilayaa si uu wax jiraa bulaya markaan arko in wadani weli nool yahay oo shaqaynayo mucaaradkan hadda ku jira wadanigu muxaafidkan uu ku jira baleeg hadda yaa waxaan soo xusuustaa heestan baan soo xusuustaa ileeg hadda gesiga dhulkiisa busha u horseeda geerida dishaay geedka habo u gabraaratada gumaysigu ku dhuunta galabsada humaanta geedkooda booq
gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo uga raaratada gumaysigu ku dhuunta galabsada xumaanta geedkooda boo geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaa geedka habo waa heestaa waayahay intaa heestaan kaga gudbo allayleh waayahay marka dawlad goboleedada iyo federaalka iyo sida laysu hayo aan eego mahmaha Soomaaliya soo xusuustaa baleeg hadda mahmaha ma taqaan qoori xire kuma heshiisaan hada 5 euro baarqaba iyo baarqab kale oo muudasho ka yimid 6 baarqab geel ma la isugu geeyaa Soomaalidu waxay tiraahdaa qoori xire kuma heshiiso taani inta kaga gudbo الله إله أرين كله ومهين الدنيا أنا كشغاليو نبضي النور ما واحد كفان تامر والبا وعلى شرط ما دا رئيس الوزراء هي مدحوين واسمه قوانين أنت سو رئيس الوزراء يسوق قبته أنت سو مدحوين وروح أسوح معها ومد دني واحد ربط الرفاض ده كسب على الرود يمرق يسكون لغة ربطها نبت قلي ربطها عارفين ما ربطها إلا هذا ربطها مدحويني رئيس الوزراء يسقبن واي مش روح عن وقت دقيقة بس أنا يا حاسس ومد أذيك بيربطها هذا مد وقبتين بعد إذن هرتها الله أنا جاينا مشروع الوقت دكتور مدحويني رئيس الوزراء ويقول قد اسمه قبل إله وعاو ما يفرس كنت الضلع أذيك بالمد النور ربع وحود دونية أنا ما كان موادنا هاي نبتقول لي أنكار ربع هذا مسؤولية قاضي وحين ودن وقال لا سيادة قال غير كرر هدي أضحين وقاضي ودت كانت قلعين وذي دعوتك وقف الصلاة أديك قهر دونتيس قبوش ولا حسنا ولا سنة بدي نوري وأنا كقصن شاد كان لجوتشي شيء أنا صاد دونتي أنا صاد دونيسي أنا كصاد سنة نونده فرايس كجليلين فوضى هذا يلي حلكة هي هدي ملال وصاد القاضي بريء أنا نقول حبل الليل مرة بالتليفون ما الله يسود دريا أقول لي رنو هذا النبض ينور صاد القاضي وأمريكي كذا كوجود دم بيسي راح بقى نقد دقنين أنا السنين دي يديك هيدوا الدولة دي حسابتك قال يبوك بانو دين وضنا يقول لي أنا صعب تقدر تشان عقل واسع سمعت قرن ثاني أنت إنك جدو واجهل الله يلهي بالهداج الريال العجيبة أيدنا ترتيل ماذا الريالو أقول بعدين رنت يسوس شاكنا موقت من الاسترية ريال قال لي حوراهن إيه كده الريال عجيب كم تقال بوتولاندي يا سوماليلاندي بابريها اللي جوك في ثمية وحلا يقول سوماليلاندي وبلا يقانا وأنا من كاجو أي واحد هذا نلوك سوماليا مرة بنو جمهورية بانو هاي بيجي هذين عرب البوتولاندي هل فهم فالهذا ما سوى حاجة أفكار دينعو أفكي هاي يدينعو دبلوتها اللي كلا جرم واهي الله لا الليلة صادوا لنا حقنا طبعاً بدت طلب علي وين بدي بوتلاندي والله بن سوماليلاندي بقى كدوبة بوتلاند بفق هذا من بايدون يشرته بوتلاندي فلاك هذا إن هذا امتحان قار قاضته فدرال كالصوماليا دينعو يستاج وحلي تقول ما لقوك في تمين لقوك لا تجين مودا وده الصومالي إلهي بس بدي والله من السنة وكل جوعي كل شيء شوقي يكوي أنا في شوقي بس صعبة هذا أنا بوتلاندي محمد سياد درنا عظم محبتكم بالعربي تذكر حبيت أقولين سمع قرن عبد الرشيد نادي قد لي سمع قرن فتنا هذا الصومالي كدقين ولي جد والله فتوا هذا كدقين صومالي فتنا هذا كدقين بوتلاندي كم بدنا على بعض جنا عادي قاعدين مضي إلهي ولا امتحاننا قارد قاضنا يساو باش عالم كانوا رغدوا قريساو فدرال كان عادي ولاقيا والله ميل بوتلاندي شوقتنا إن نبدي كل عين باكوري صوماليا أنت بوتلاندي كبير وريو حالي فرتها صح ما تفلق حاجة ما قوله بوتلاندي نعيد كمان ما رمي كرتون دل كنا ترقي بريق قرف كعد كل دارتي بقولكم بحية عبد الرشيد الديمقراطي بقى الجسعود محمد سياد دري ميليتري هذا هودت كبابية يا حكومة كفراها كجلية تبيت الآن بكجلسة ما نقول تكون شاقنا هنا به بركة عبد الرشيد حبط كله فطيب محمد سياد دري تعقد كسب بودي محمد سياد درنا كعانك مويه كعانك كذب كم فكرين كعانك كذب من ورنا قاعد سكوي يعني كليتك سواد قبل سنة حبط يسكلت دالي دلك ولوني واحد بيت الآن بقى كمسؤول هاي عبد الرشيد أبو قشاكم مريال أسعاني ما حبط كله فني لابن كوداش هذا محمد سياد درون نورا سياد هاي نما SSD حبط أنا كم باللعب هذا نمي هذا نقول هاي امتحان قارئ هذا قاعدين بس عالم كم هذا ورقة قرين بوتلاندي قال له حنقولي والله وحسك كارد عيال لا إله وجهك وهي أنت وحنا سوق بقبلين يا برنامج كأني دنجود يدول النمو أنت مرة كلا يسوي من دونه إذا مكيلهي وحنا ذيك
Soomaalian garan nin habar dhashay hal maseeg waaye ilmaad reelo barnaamijkeeda ku jiray hadii ay ku yara taabatay ama ku yara danqaday waa danguud iyo dawladnimo waa tan hooyadii waaya Soomaalian garan ilaahayna waa albaadinu hal laygu qaato intaan kan kul mid doono waxaan idinkaga tagayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق عيد ونكسب لك ويني إلى اللقاء